بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن داوديال كسو دوادا برنامجka dabagalka wararka oo xilligan oo kale aad ka daawataan TV-ga Universal anigu Cabdullaahi Axmed Nuur ayaa barnaamijka idin soo jeedinaya qodobada aad ku daawan doontaanna waxa ka mid noqon doona wariye u shaqeynayay TV-ga Kalsan ayaa gelinkii dambe ee maanta lagu dilay magaalada Muqdisho faahfaahin ku saabsan dilka wariyahaasi ayaan idin soo gudbin doonaa qodobadeena kale waxa ka mid noqon doona dawladda Soomaaliya ayaa kor u qaadaysa aqoonta la xiriirta la xisaabtanka iyo la socodka howlaha ciidamada booliska Soomaaliya haddaba ay tahay cidda la xisaabtamaysa ciidamada lana soconaysa howlahooda waxaan idin soo gudbin doonaa waraysi ku saabsan arrintaasi iyo siyaasadda amniga ee dawladda Soomaaliya qaybaha dambana waxaad ku daawan doontaan maanta Muqdisho waxaa lagu soo bandhigay qaamuuska eray bixinta doorashooyinka iyo istiraatiijiyadda doorashooyinka dalka ee 5 sano markale kulanti wanaagsan daawadayaal gelinkii dambe maanta magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay wariye ee u shaqeynayay TV-ga Kalsan ka howlgala guud ahaan dalka Soomaaliya wariyahaasi ayaa lagu magacaabi jiray Maxamed Ibraahim Gaabo waxaana wariyaha lagu dilay kadib markii qarax ama mina loogu xiray gaari uu watay xilli uu marayay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ilaa hadda lama sheegin cid kale oo qaraxaasi uu khasaare ka soo gaaray marka laga tago wariyaha ku geeriyooday qaraxan waxaa telefoonka ku jira Cabdiqaadir Maxamed Xasan oo isna ah cameraman u shaqeeya TV-ga RTN oo ay meel ku wada noolaayeen Maxamed Ibraahim Gaabo Allah u naxariistay Cabdiqaadir haddii aad maqli karto bal sida ay wax u dhaceen faahfaahin naga sii aywa mahadsantahay gelinkii dambe ee maanta barkii ayaa gaarigiisa Maxamed Gaabo Allah xamade loogu xiray waxyaabaha qarxa xaafadda ayuu ka baxay meelaan sidaas fogeen markuu xaafadda tagay kulay gaarigii uu la qarxay laba yar oo gabar iyo wiil ayaa la saarnaa iyagana Ilaahay wax ma gaarsiinin isaga bishaasi ayuu ku dhintay marka ma isla qaraxaasi ayaa goobta uu kula geeriyooday mise dhaawac ayaa jiray oo markii isbitaalada la geeyay ayuu geeriyooday maya Cabdullaahi isla goobta ayuu ku geeriyooday ma joogin mar aan gaaray ciidanka dawladda meesha joogo wixii xaqiijiyay inuu meesha ku geeriyooday ciyaalkana iyaga ay ka soo dejiyeen gaariga iyagoo qaylinayo marka sidaas ayuu wax sida lagu soo gaarsiiyay Cabdullaahi waayahay marka si kooban maxaad faahfaahin oo naga sii kartaa nolosha Maxamed Ibraahim iyo guud ahaan arrimihiisa Cabdullaahi Maxamed Ibraahim wuxuu ahaa in hadda dhow soo dhameeyay degree Makerere University hadda ayuu macnaha wuxuu qaban jiray Kalsan ayuu ku howlgeli jiray laba jaamacadoodna wuxuu ka ahaa macallin marka sidaas Maxamed Ibraahim aad in iska dab fiican oo aad sana uu ahaa marka ilaaha kulay jacay waxaan leenahay kullu nafsin dhaa'iqatul mawt naf walbo Maxamed Ibraahim weli ma la aasameydkiisa weli lama aasin kulay eheladii iyo annagii oo dhan waxaan joognaa isbitaal Madiina oo kulay berita laga qaadi doono hadduu ilaha awoodda ogolaa marka ayaan rajeynayaa hadduu ilaahay yiraahdo waayahay Maxamed wax qoys caruur iyo wax intaba ma laha Cabdiqaadir hadda kulay xaasilo ma ahayn laakiin hal gabar ayuu iska kaga tegay marka sidaas ayay Cabdullaahi tahay aad ayuu maatan yahay kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Xasan oo ay meel ku wada noolaayeen Maxamed Ibraahim Gaabo oo maanta lagu dilay qarax loogu xiray gaarigiisa xilli uu marayay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir barnaamijka dabagalka ayaa daawanaysaan dawladda Soomaaliya ayaa kor u qaadaysa aqoonta la xiriirta
la xisaabtanka iyo la socodka howlaha ciidamada booliska Soomaaliya oo xil saaran sugidda amniga guud ahaan dalka waxaana ka qayb qaadanaya aqoon kororsigan xubno ka kala yimid maamul goboleedyada dalka iyada oo wasaaradda amniga ay arrintaasi soo qaban qaabisay. haddaba yay tahay cidda la xisaabtamaysa ciidamada booliska maxaase laga baran karaa aqoon isweydaarsigan? waxaa stuudiyaha Universal igula sugan Cabdinaasir Siciid Muuse oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya xildhibaan baarlamaanka ka tirsanaa. Cabdinaasir ku soo dhawaad barnaamijka dabagalka inta aanan gelin howlaha wasaaraddii iyo waliba aqoontan la xiriirta la xisaabtanka howlaha booliska maxaad kala socotaan dilkan maanta Muqdisho lagu geystay wariye Maxamed Ibraahim Gaabo? dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ayaa salaamaya waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mar labaad waxaan u mahadcelinayaa Universal TV oo fursadan qaaliga aan kala soo qayb galay barnaamijka dabagalka wararka iyo wariye Cabdullaahi oo warka tabinaya aad baa u mahadsan tahay mudane. ugu horeyn waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo oo ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta iyo bahda saxaafadda oo walaal aan jecel lahay Maxamed Ibraahim Gaabo oo ahaa shaqaalaha ka mid ah Kalson TV uu ku geeriyooday gacan ka xaq daran ay ku dishay caawa maqribkii qolooyinka la yiraahdo nabadiidka iyo burcad aniga aan u aqaan burcad diimeedka ayaa maanta si xaq daran galabta caawa ugu dishay magaalada Muqdisho. waxaa ogsoonataan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dadkan waxay u socdaan waxay tahay cid walba oo Soomaaliyeed in ay inta ay dhibi karaan ama dili karaan ay dilaan sababtoo ah waxa ay mar walba hortaagan yihiin horumarka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed mana cafinayaan caruur hooyooyin cirro dad waaweyn dad yar intaba iyo shaqaale kala duwanba. marka waxaan rabaa inaan familka uga tacsiyeeyo Maxamed Ibraahim Gaabo Allah u naxariiso jannadina Allah ka waraabiyo waana shahiid gacan ka xaq daran ayaa dishay. wasiir Cabdinaasir dabcan dilalka suxufiyiintu waxay qayb ka yihiin dilalka kale ee magaalada ka dhaca oo dadka shacabka ah loo geysto. wasaaradda amniga adigu wasiir ku-xigeen ka tahana mas'uuliyad gaar ayaa idinka saaran raallahada maxaa tilaabo ah ood qaadaysaa? waxaan rabnaa tilaabada ugu sokaysa inay tahay in dadka dambiilayaasha ah oo Maxamed Ibraahim Gaabo dilay in aan gacanta ku soo dhigno sharcigana waafajino mana oga daharayna in shacabkeena Soomaaliyeed intay dilaan ay ku gambadaan magaalada gudaheeda ama banaankeeda meel walba ay joogaan in lagula xisaabtamayo waa inay ogaadaan. waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed la shaqeeya hay'adaha amniga si aan uga hortagno qof maalin walba qof aan jecelnahay ayaa la dilayaa waxaana taa uga hortagi karnaa waxay tahay annagu aan la shaqeyno si dhow hay'adaha amniga ka shaqeynaya ciidanka amniga iyo hay'adaha mar walba waxay diyaar u yihiin shacabka in ay la shaqeeyaan ay u dhowaadaan kana difaacaan cadowga Soomaaliyeed iyo burcadiimeedka. dhinaca kale Muqdisho maanta waxaa lagu soo gabagabeeyay aqoon isweydaarsi ku saabsanaa la xisaabtanka iyo la socodka howlaha ciidamada booliska. muxuu yahay nuxurka aqoon isweydaarsigan marka hore? kulanka wada tashiga ku saabsan kala socodka iyo isla xisaabtanka howlaha ciidanka booliska Soomaaliyeed muddo 2 maalin buu socday anaa shalay furay dooduna si fiican bay u dhacday waxaana iskugu yimi hay'adaha kala duwan gaar ahaan booliska Soomaaliyeed hay-adaha xuquuqul insaanka guddiga baarlamaanka waxaa kaloo goobjoog ka ahaa wasaaradda arrimaheeda hay-adaha wasaaradda kala duwan waxaana laga niqaashay waxay ahayd sida ugu dhow oo booliska Soomaaliyeed waxaan ogsoonnahay waa saaxiibka shacabka wuxuuna had iyo jeer heegan buuxa ugu jiraa ilaalinta nafta hantida iyo sharafta dadka iyo dalka Soomaaliyeed taasaa keentay marka inaan shaqadii booliska Soomaaliyeed shacabka u hayay inaan tusno kalsooni buuxda inay ku qabaan oo cid walba himilada dawladda nabad iyo nolol iyo madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ah cid walba mas'uul ah oo shacabka u shaqeynaysa in lala xisaabtami karo hufnaan iyo shaqo wanaagna ay noqotaba inaan shaqadeena aan mar walba bees uga dhigno taasaa keentay in aan iskugu yeerno
booliska soomaaliyeed iyo ururada bulshada iyo hay-adihii aan hore u sheegay si ay uga niqaashaan qaabka ugu dhow ee ula xisaabtami karaan booliska. korjoogteynta dibadda laba qeyb baa marka u qaadaynaa noocyada korjoogteynta booliska. mid waa mid toos ah oo waxaa fulin doona wayna dhacdaa oo hadda xataa shaqadeena ka mid tahay guddiyada baarlamaanka oo guddiga amniga baarlamaanka, wasaaradda iyo madaxda sare, guddiga iyo hay-adaha madaxa bannaan ee korjoogtada booliska ah, garsoorka iyo xeer ilaalinta, hanti dhowrka guud. intaasba korjoogteynta tooska ayay ku samayn karaan. midda dadban oo aan rabnay waxay tahay in saxaafadda, ururada bulshada, dadweynaha, shacabka iyo dadka akademiga aqoonta u leh. arrintaasi waxaan aan waqtiga badan wasaaradda u gelinaysa waxay tahay in booliska dadka khibradda u leh inay la qeybsadaan qaabka shaqadooda tahay iyo sida ay iyaga ugu soo bandhigi lahaayeen shaqo wanaagsan shacabka Soomaaliyeed. way cidda la xisaabtamaysaa markay tahay booliska haddii ay khalad ka galaan bulshada ama dambiyo lagu helay intaba. waa intaan hadda kuu soo tirinayay korjoogteynta waxaa samayn doona guddiga baarlamaanka oo guddiga amniga baarlamaanka. waxaa kaliya booliskana kuma sameeyaan, hay-adaha amniga oo dhan ayay ku sameeyaan. laakiin waxaan rabnaa shacabka inaan tusno in ay daaqadda u furan tahay in iyaga aan xuquuqdooda la ilaaliyo, aan booliskeenuna uu noqdo boolis dimuqraadi ah oo u dhigma booliska caalamka oo iyaga saaxiib dhow la noqda mar walba shacabka Soomaaliyeed. dhawaan siyaasadda amniga qaranka ayaad dabcan wasaaraddu ay diyaarisay ayaad gudbiseen oo kulanka xubnaha golaha wasiirada aad ku bandhigteen. maxay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga sheegi karo qorshahan aad diyaariseen? qorshahan wuxuu ka turjumayaa baahida aan u qabno in amni guud dalkoo dhan laga hirgeliyo oo meel walba aan hiigsano Soomaali oo nabad ah oo ku noolaada, wax ku barta, wax ku shaqeysta jawi nabadeed. taasaa waxay tahay qorshaheena amniga qaranka. waxaan rabnaa inaan horumarino hay-adaha amniga oo aan tayadooda iyo waxqabadkooda kor u qaadno intay hadda yihiin. waxaan kaloo rabnaa hay-adaha qudhooda in aan la xisaabtano oo bulshada waxa ay u qabanayaan ama waxa ay gaarsiinayaan shacabka Soomaaliya in ay tahay wax ay xisaabi ka dambeyso oo isla xisaabtanna uu jiro. waxaa ogsoontihiin dowladda nabad iyo nolol waxaa astaan oo ah hufnaan iyo cadaalad. waxaan ogsoonahay shacabka Soomaaliyeed haddii cadaalad helaan wax badan oo amniga ku saabsan ayaa waxa weeye marka la higsan karaa. taas waaye ujeedadeena qorshaha amniga qaranka oo aan 5 sano soo socota aan ugu talagalay hay-adaha booliska, hay-adaha socdaalka, hay-adaha nabad sugidda, hay-adaha arrimaha ka shaqeeya walxaha qarxa seema iyo coast guardkaba. intaasoo hay-adood ayaan waxaan rabnaa inaan dib habeyn lagu sameeyo dirdirgelin si ay ula jaan qaadaan hay-adaha caalamka ka jira, tayadooda iyo aqoontooda iyo capacitygoodaba kor loo qaado. waxaan ka duuleynaana waxay tahay shacabka Soomaaliyeed waxay u ooman yihiin, waxay tahay in nabadgelyo ay mar walba helaan. taasaa tahay inaan waddankeena oo dhan aan nabad kusoo dabaalno, aan al-shabaab ka xoreyno. cadowgeena koowaad waa shabaab. marka haddii aan cadowgaas ka baabi'ino ama aan cirib tirno waxaan ku kalsoonahay Soomaaliya inay dib waxa weeye wax badan u qabsan doonto oo xagga ganacsiga, waxbarashadii iyo horumarkii kale ee bulshada, arrimaha bulshada. wasiir Cabdinaasir waad ogtahay caqabada weyn ee Soomaaliya haystaa in arrinta amniga ay ugu xoog badan tahay. mas-uul kastee xilkaasi qabtaana mar kasta culays weyn uu la kulmo. waxaad wajahaysaan si gaara wasaaraddiina amniga masiibadii ka dhacday qaraxii Soobe oo moodo in Soomaalidu ay si sahlan aysan marnaba uga tirmi doonin iyo dunida inteeda kale markaad eegto. aragtidaada wax ma laga qaban karaa amni darrada dalka waqtiga dhow ee soo socda? waa laga qaban karaa oo annaga kama quusanayno inaan shacabkeena Soomaaliyeed aan kusoo dabaalno amni nabad ah. laakiin waxaa la rabaa kaliya inaan maskaxda la gelin wasaaradda amniga unbaa mas-uuliyadda saaran tahay.
mas-uuliyaddu waxay saaran tahay shakhsi walba oo Soomaali ah oo muwaadin ah in uu ka qayb qaato amniga. waxaan ogsoonahay dalalka caalamka ama wadamada western countries la yiraahdo waxaa hadda amniga mostly ama ugu badnaanba suga waxay tahay dadka civilka ah oo xaafadaha jooga. haddii dadka waaweyn oo kale da'da age-ka ah waxay qayb ka yihiin dadka ka qayb qaata nabadgelyada xaafadda. waxaan ogsoonahay qiso hadda ka hor dhacday habar da ah oo meel sare gurigeeda balkoonaha fadhida ayaa waxay aragtay shakhsi bac qashina meel ku ridaya. immediately waxay report gareysay booliskii iyadoo ka shakisan waxaan waxay yihiin. maamadaas ama qofkaas weynaaday wuxuu isagoo da'daas ah ka qayb qaatay horumarinta amniga dalkiisa. marka waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelino hooyooyinka dhalinyarada dadka waaweyn aabayaasha ah jaamacadaha iskuulada masaajida kulli inay ka qayb qaataan in ay amniga wax ka sugaan dalka. waxaan ogsoonahay dadkan wax qarxinaya cid ka badbaadaysa ma laha. qof walba marka haddaan ogsoonahay cid inaysan ka badbaadin waa inaan ku tashanaa amniga inaan wadajir u sugnaa oo aan la shaqeynaa hay-adaha amniga. annaga waxaan rabnaa shacabkeena Soomaaliyeed in ay si dhow ula shaqeeyaan hay-adaha amniga. waxaa noo fududaanaya cadowga meel walba uu ku dhuumanayo ama uu ku jiro inaan ka soo saarno sharciga horkeenno iyagana ay nabad ku noolaadaan. aad ayuu mahadsanyahay. kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdinaasir Siciid Muuse oo barnaamijka dabagalka igala qayb galay. qaybihii dambe ee barnaamijka dabagalka wararka ayaynu soo gaarnay. guddiga doorashooyinka ayaa maanta soo bandhigay qaamuuska erebixinta doorashooyinka iyo istiraatiijiyadda 5 sano ee doorashooyinka dalka. waxaana munaasabadii lagu soo bandhigay ka qayb galay axsaabta siyaasadeed ee dalka ka jira iyo mas-uuliyiin kale oo uu ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir. waxaa halkaasi ugu horeyn ka hadashay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliya Xaliima Ismaaciil. runtii tallaabadaas ee ula socdaan waa midda xataa annagana lagu imtixaami karo oo la fiirin karo oo leeyahay meeshaan waa qabateen meeshaan ma aadnaan qaban maxay tahay waa midda aan rabno inaan dawladda commitmentigeeda iyo ka qaybgalkeeda culus aan ka helno ee nala qaadato strategic plan-kaasayto. waxaa maanta nala fadhiyay wasiirkii qorsheynta. hadda qorshe asagaa mas-uulka ah qorshihii annaga waa soo diyaarinay sidii naloola hirgelin lahaan rabnaa gobolka Banaadir saan uga shaqeyn lahayn ayada nafteeda tallaabo weyn ah oo runtii muhiim oo na haysato. howlo badan dawladda way ka saaran tahay mas-uul oo ugu horeysaba hadda xaruntii aan ku shaqeyn lahayn sidii loo dhisi lahaa ama annaka aan isku tashano oo aan ka helno dawladdeena ama se gacan ha weydiistaano dawladaha kaleeto. waxaan aad ugu faraxsanahay muxuu ahaa inaan hore u soconno inaan tallaabo qaadayno. waxaan idiin sheegaa go'aankii maalin dhowd ka soo baxay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada in guddiga doorashadu uu soo sameeyo wada tashi oo wax allaala dhibaatooyinka ka jira muxuu ahaa doorashooyinka ama ka hor imaan kara iyo sida looga gudbi karo inaan dadweynaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan kala soo tashano. waxaan aadi doonaa gobolada oo dhan dawlad goboleedyada oo dhan aan aadi doonaa. dawlad goboleed kasta waxaan ka tagi doonaa 4 degmo oo aad u waaweyn oo dadkeeda wada tashi la soo sameyn doonaa. waxaan ugu horeyn doonaa haddii Ilaahay idmo gobolka Banaadir dadka ku nool sidaan wada tashi ula sameyn lahayn oo doorasho hal qof hal cod oo xaq ah aan u gudbi lahayn in aan wada tashiga sameyno. gudoomiyaha gobolka uu nala fadhiyaa siyaasiyiintii way nala fadhidaa dawladdiina way naga dambaysaa inteenaasoo dhan annagoo ahaa waxaa la rabaa xal inaan u helno doorashada 2017 annagu waxaan idhaahdaa waxba ma qaban laakiin haddana markaan fiirino schedule-keena iyo siday noogu qoran tahay oo strategic plan-ka aan fiirino waxaan aaminsannahay inaan wax badan aan qabanno oo maanta meel fiican aan soo gaarsiinay. waxaan rabnaa 2018 inaysan maalinna naga dhumin annagu inaysan maalin nagu dhumin
dowladda oon ka sugayno taageeradii dhaqaale inaysan maalin ku dhumin hay-adaha caalamka oon ka sugayno muxuu ahay kaalmada dhaqaale inaysan maamulka waxba ku dhumin xisbiyada iyo siyaasiyiinta ayadana naftooda inay isu soo diyaariyaan siday doorashadaas ay uga qaybgeli lahayn haddayse ayagu isu soo diyaarin doorasho ma jirayso iyo guud ahaan dadweynaha soomaaliyeed oo dhan aan rabnaa inaan ka shaqayno waxaan sugaynaa waa gacantiina meel kasta ay jirto soo dhowaada waxaan rajaynayaa in aan 2020 December annagoo meeshaan meel ka fiican joogna in alla na wada gaarsiiyo nagu ceebeynin doorashada adinkana aadnan ku hungoobin oon guul wada gaarno diyaarinta qaamuuskan waxaa qayb ka qaatay aqoon-yahano Soomaaliyeed gaar ahaan khubaro dhinaca af Soomaaliga ku xeeldheer kuwaasi oo qaamuuskan oo markii hore ku qornaa luqadaha Carabiga iyo Ingiriiska u turjumay afka Soomaaliga waxaana munaasabada xubnihi ka hadlay sidoo kale ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed iyo xildhibaanad Fawziye Yuusuf Xaaji oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ahna hoggaanka mid ka mid ah axsaabta siyaasadeed ee dalka daahfurka qaamuuska eray bixinta doorashada iyo qorshaha istiraatiijiyadda 5 sano ee uu guddiga diyaariyay taas oo si cad u qeexaysa sida lagu xaqiijinayo in la qabto doorasho qof iyo cod ah iyo hanaanka loo marayo waxa hubaal ah buu gacmeedkan eray bixinta doorashada iyo qorshaha istiraatiijiyadda 5 sano in ay qayb weyn ka qaadan doonaan wacyigelinta ku saabsan doorashooyinka soo socda ee aan hiigsanayno waxaan ku amaanayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka hawsha joogtada ah ee u hayaan ummadda Soomaaliyeed waana shaqada naga saaraysa nidaamka qabaliga ah ee 4.5 noona raraysa nidaamka xisbiyada ama axsaabta iyo doorashooyinka qof iyo cod ah guddiga waxa uu joogto u qabtaa barnaamijyo kala duwan kuwaas oo isugu jira wada tashiyo wacyigelin iyo tababaro aqoon kororsi ah oo ku saabsan hawlka kala duwan ee doorashooyinka taas ammaanteeda waxaa iskala dhammaan xubnaha guddiga dhammaantood iyo sidoo kale oo uu horkacayso gudoomiyaha guddiga Marwo Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yarey iyo xubnaha guddigan mar kale ku celinayo iyo dhammaan tiimka ama shaqaalaha guddigaas gobolka Banaadir iyo dawladda hoose wuxuu wada shaqayn xiriir wanaagsan la leeyahay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka gobolka doorashooyinka qaranka gobolka oo ka dhaqaaqaya ahmiyadda uu guddigan leeyahay sida aad ka warhaysaan wuxuu mar hore siiyey ama guddoonsiiyey dhul ku filan oo uu guddiga dhisto kuna shaqeeya si uu uga baxo meesha ku meel gaarka ah ee uu hadda ku shaqeeyo waxaan ku baaqayaa in dhammaan aan ka qayb qaadano si wada jir ah dhisidda xaruntaas si masiirka Soomaaliyeed meeshii horkici lahayd ee guddigii madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka uu helo sal joogto ah ama fadhi joogto ah ama xarun joogto ah waana waajib saaran qof kasta oo Soomaaliya inuu ka qayb qaato iyo sidoo kale saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya garab taagan in ayagana qaybta kaga aadan ay ka qaataan dhisidda xaruntaas waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan carabka ku adkeeyo in howlaha qabyada ah ee la hor yaalla ay ka mid tahay dhamaystirka dhisidda federaaleynta ee dalka oo dhan oo ay ugu horeyso meel saaridda maqaamka caasimada dalka ee Muqdisho oo ah halka ay ku nool yihiin inta ugu badan ummadda Soomaaliyeed waxaa kaloo howl muhiim ah tirakoobka dadka Soomaaliyeed iyaga oo la siinayo fursad ay isaga diiwaangeliyaan xisbiga ay la dhacaan ama xisbiga ay qabaan dabcan waxaa ka horeeya diiwaangelinta iyo nidaaminta axsaabta oo ka mid ah waajibaadka shaqo ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo uu hadda axsaab badan u diiwaangeliyey si ku meel gaar ah waxaan idiin rajaynayaa aniga oo idin garab taagan in aad taariikh samaysaan oo aad ku guulaysataan gaarista doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda geyga Soomaaliyeed
sanadka 2020 waad mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وقعت يا مجمع تدبد حسبي للريجستر قرية أما الديوان قلية وحن مركه رهم بلية أدريا كدية يج تيم كي كسر شقية لكس كان كعادي عاد وقروح ضبطنا تفكرن لو بهنا سينا الرجالين يا تذكر بين سياسة المستقبل كقريب كلام وفهم الدولة قابك يا حبابك أي لوجل دورشوينك وطلابك لا وأد قيمة وين أو أي قد وسميين مدة قبل ندي شوين مركله هم بلي عليه قديا سومالي وحي كسو قدبتي وقتي أذاك إمك وحي نتاجنا وحلينا كروسرو أما وقتي أنو كتل أم بقعد لهين هالكي هراء حنونك يدي بعد تدبدني سيدي الله شيء كنت سندات دورش اللي بقولين صد سندات ندبات من كتير وحا مهمة إلا فهمه وعلى صوت مرة بعد تدن وأنا إنه كجد بيننا إن شاء الله وصدق ساعة قبل دي حنونك إنه تاجنا هاي يهالكي هرمرك إنه كجاري لهين doorashooyinka in la isu diyaariyo waqti gaaban baa haray laakiin si wanaag dadku waxaad moodaa in la yar jaan qaadeen hadda axsaabtii qaarna soo baxeen qaarna soo socdaan one man one vote ama hal cod hal qof waxay dan u tahay cid walba waxay dan u tahay dimuqraadiyadda iyo horumarka iyo nabadda iyo fahamka inaan qabiil meel la cidna gaadhsiin karin qaybin iyo dib u dhac mooyaane waxay dan u tahay oo kale oo gaara doorashooyinka noocaasi gabdhaha Soomaaliyeed oo chance u heli doona oo aan lagu riixi doonin hadda kadib qabiilku kuma doonaya nin buu rabaa oo chance ka u heli doona hadday dadka ku qanciyaan kartidooda inay soo galaan goobaha laga amba qaadayo horumarka dalka ama lagu qorsheyn doono أما لابد شرع الدجين دونه وحن آدم فرحسناهاي إن أنا استبتشوجا تلابوين هرمر لما نقول وقايب كلا إنه أما بقى الدولة ده إيو كتجان إيو برلمان كإيو إنت كلا institutional كلا دلكو أي تلابوين هرلا أي قاعدة يعني وحلو فرحة وحن إيه هاي كرتشينا يا دور الشداين إنه كوجانو سنة بدأ ay u dhacdo oo aan la carqaladaynin in loo dhabaradaygo mar kale hambali aan leeyahay anoo magaca xisbiyada ku hadlaya guddigii ka soo shaqaysay guddiga doorashooyinka ee hirgelisay istiraatiijiyadii iyo qorshihii 5 sano 2017 ilaa 20 waa 3 sano iyo Lexington kan oo aad faa'iido ugu yeelan doona كيدي صعد كدورشوين كأدي أد بومهتسنتي. guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii dabagalka wararka caawa qaalid maka ayaa farsamada iga caawiyay tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.